walaalayaal waxaan ku jirnay bishii Ramadaan ee barakaysnayd ee kitaabkeenii matnu 40 nawawi ma galabtuna waxaan qaadan doonaa insha Allah taala xadiidkeenii saabic xadiiska toddobaad وعن أبي رقية تميم ابن الأوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه المسلم. والله الحديث كان وحديث وقابا ومعنى وبلارا حبارسا تاسنا وحي إن تسيسا معجز كي رسولك صلى الله عليه وسلم وإلهي سيي رسولك صلى الله عليه وسلم كلمة كوبا ومعنى وبلارا حبارسا إن رسولك صلى الله عليه وسلم لسيي سيدا أوجد حديث كان وحورنا يا رقية تميم ابن أوس الداري وورنا يا saxaabiga wuxuu leeyahay qiso yar oo kooban oo isaga oo doon saaran xilligii rasuulka oo maraya wadamadan khaliijka qayb ka mid ayay doontii isaga iyo dadkii saarnaa ay la qalibantay kadibna waxaa dhacday inay ku soo caariyeen meel yar oo jabal oo kala oo jasiirada oo badda gudaheeda kadibna waxay arkeen halka kula kulmeen nin ku xidhan meel buur oo ku tigtigan kadibna ninkii ayaa la hadlay isaga iyo dadkii meesha mid ku jira nin carab oo mid ka mid yahay kadibna ayaa la yiri oo aniga ayaa la tilmaamay ayuu yiri waxa oranaya Tamim ibn al-Aws ad-Dari aniga ayaa la tilmaamay ninkii su'aalo ayuu weydiiyay oo uu leeyahay ma soo baxay Nabi Maxamed nabigaasoo ka soo baxay meel timir leh calaamado badan buu weydiiyay wuri kadib calaamadihi ayaan uga jawaabay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa meeshii naga soo saaray waan imid rasuulka ayaan u imid buuri arrintii ayaan uga warramay ninkii meesha ku xidhnaa kadib rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo wixii uu weydiiyay su'aalihii ayaan rasuulka u sheegay kadib rasuulku wuxuu ii sheegay inuu yahay ninkaasi cawar ad-dajaal inuu ahaa oo halkaa ku xidhan inuu yahay ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ii sheegay buuri sida awgeed saxaabiga kaliya ee la kulmay ee arkay dajaal xadiithana wuxuu wariyay Tamim ibn Aws ad-Dari xadiidkan oo kaliya xadiiskan waa xadiis mashhuura waana xadiis runtii macna u ballaaran ku fadhiya rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa la siiyay kelimado kooban oo macna u ballaaran xambaarsan عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه الله كرم النقضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رسولك نبي قلنا حريص الدوشي ساعته قال وحولي الدين نصيحة ونحريص هي النصيحة قلنا لمن وحنكون لأني أصحابتي إلى جوكتي قلنا لمن يؤتهي قال وحول رسولك وحول صلى الله عليه وسلم لله إلهي ولكتابه كتاب كيسة ولرسوله رسول كيسة ولأئمة المسلمين يا مدحض المسلمين وعامتهم يا المسلم مركا diinta waa naseexo waxay u tahay ilaahay in la qaato amarkiisa lana fuliyo wixii uu naga reebayna inaan ka reebtoonaano in keligii ilaahay subxaanahu wa tacaala kelinimada loo qiro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo keliya la caabudo walikitaabihi kitaabka inaan rumayno ilaahay soo dejiyey ee tansiilka walirasuulihi rasuulka sallallahu alayhi wasallam wixii lala soo diray inaan rumayno wixii rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu ina faro inaan fartoonaano wixii naga reebayna inaan ka reebtoonaano ولأئمة المسلمين مدحدين المسلمين إن أضيعنو وناج يا خيرك يا الله كعبسك أنكو أضيعنو هدي أي خلدمان نماركتاي إيجا كله ده أنو برارجينو ونوشجنا وحي حمانا أما وحي خلد كنعا وعامة المسلمين تدمانتو إن يسون حريستان بحدو ده وماركتاي أي وحي وناج إسفران وحي حمانا إسكر ريبان مركا حديث كمعناها بلارن أي حبارسية وحنا إلهي كرجيننا هو كعمل فلا إلهي نقدره يسوق بيا rasuulkana sallallahu alayhi wasallam raacay rumeeyay dunuubtooda iyo dunuubta maaragtay waalidiintoodana ilaahay u dhaafay khayrkana mar walba ka shaqeeya marka walaalayaal bishii barakaysneeda Ramadaan ayaan kaga jirnaa axaadiistan aad looga faa'iideysto oo walaalkiin oo islaam assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala